وين وأنا قوي بريحن ضمبي أبوانك reer Minnesota waa xaween adeerkay adeer Cusmaan Ducaale ayaa inuu xigi doono oo isagana maanso farta iyo afka Soomaaliga ku saabsan inuu maansan doono suguur waa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamaya intina qiimaha iyo qaayaha leh ee xafladan fadhida intii soo qaban qaabisay iyo intii isu taagtayba waxaan magaca reer Minnesota mar labaad aan ugu salaamaya kuna soo dhaweynaya wafdiga qiimaha iyo qaayaha leh ee maxaa dhahaa guurtida af Soomaaliga inta u hadhay ee nooga timi Afrika gaar ahaan Djibouti wallahi anigu waxaan ka mid ahaa ardadii markii horena af Soomaaliga la soo qoray iskuulada bilaabay markii dambena elementary miyiga loo diray أفرد باطنكي إن دتك في الصومال قبرنا في الصومال واحد بدل ما هين دتك أفهم كل هذا الجنوة على قري وحربا إن الإنجر أو في الصومال يكون صابسن حوجا عشان تدقيق بلنا نوكلا قيب صدام وأنا كنت الماما يا في الصومال وحولنا التري وقولنا الدعينا إنه سيجلو السجاية أنت شو تاكتي دريال كيس أنا إلهي من لسان كنت حسناتك وصارم qoraalka afkeenu ila isbaxay weeye indii arageena alayka ka fiiday ayaan rabbi weeye ilaahayna siiyay la aawlanayaan kuwan baxnay weeye hawraariyo maanso aslaan dhaqankeena ficiisirkeena halkii laga uumay ilaah ka abuuray hidii arogaa ilwaad midabkeena intaynu ku faano midkii isimkeena intuu kor u qaaday awoodda u yeelay iftiimay weeye علوم إسلامك قرآن كي دينته علمك بني آدم أنتي إفك شوكتي وحجتهاد يا وضعك كاني أدون كوا ينفعك كاني ومت كان كوا قوني كسي انتفاعني قرآن كافكين أيام كي يقوشا أنتي كتدي قرآن كافكين أيام كي يقوشا الله مدد كذا مقياس القورين أبيد دلانك الموكو هذاهو وأبادك يل قرآن كافكينا أنتي كشغايسي أنتي كرتدودا إيا ودا دول ساعتي درتي إسو تاكتي إلا كوكر قاري قالو أجر كود أبال حسناتك أيانتا قيامي أحسانتا كسي كبعد مركان دمية فالينتيسا مرتي شرفتين كأوغو هورية هذا الكينوسو جيدين دونا وآدن حسن آدن بلول magacaaga horta dambuur dhiba balalo aadan waa hal abuur maansahayan aqoonyahan ka shaqeeya xurunta cilmi baarista Djibouti bartay culumta sharciga iyo istiraatijiga qoray buuga suugaantiisa lagu ururiyo magaciisuna yahay saabxid diiwaan maanso aadan wuxuu turjumay buug caan oo la yaqaano وليلها فتوح الحبشة وأف عربي مركي هوري لغو قري آذن هدنا وقدوميها نادقة قليل ليدا إيو هالأبوركا صوماليات فضلا سيديران أو غير مينيسوتا متلسة آذن يقول سودوية ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مروين يا مدنيال السلام عليكم ورحمة الله صعب كي اللي يتري سودوينتي سهور بقاد وحوغاي جلسي درين خجلات له مركا ماشي أن قلك وراك بلورها وحوغا هذا ما دونيه وحويان وحنوجه الرئيسين يا وحي لو قدام بيسين شري وحنوجه الرئيسين يا أنتي لو قدام بيسين شري عادهان وأهم هالنق وحنو ما هالنقينا أنا أكو هالليا أفكا قديجا يوم مرتدا إلى سعوتا دمان ويلشي يا قبله يا دقيتي دي نسور دويي أو وهريو أبوان معلن سعيد صالح
iyo mareegtiisii ayaan aad u mahadnaqaynaa. waxaa iyaguna aan u mahadnaqaynaa dhammaan xarumaha Soomaaliyeed lanagu marti qaaday ama sina marti qaaday oo halkan aan joognay Safari iyo Al-Nuur iyo Afro iyo in kale oo badan oo la mid ah iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. mahadnaqaasi oo aan rajaynayo inuu cid walba gaadho si wadistiisa iyo si tirintiisana laga fiican yahay duuduubkaas inaan ku gudbiyo. waxaan jeclahay inaan u dhaafo erey kooban. ereygaas kooban wuxuu yeelan doonaa laba qaybood. qaybta hore waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay igu simo Somali Pen ama naadiga qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed. qaybta labaadna waxaan ka hadli doonaa xuska 40 guurada ama 40 jirka far Soomaalida. haddaan ku horeeyo dabcan wax badan bay sheegi doonaa waan sugahay. waxaa dhammaystiri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo gudoomiye sharafeedka naadiga Dr. Maxamed Daahir Afrax oo rajaynayo inuu aad u ururiyo intay dhaafaysa. naadiga kan iyo sidii uu abuurmay waxay ahayd meel bandiran ah oo gariyaad ah. waxay ahayd xilli mugdi ah. waxay ahayd xilligaas oo ay dabayl kulul dhabanaysay. kolkii uu Dr. Afrax iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo kale oo wiilal iyo gabdhaba lahaa ay dhulka ku joojiyeen laan kolkii dambe caleemaysatay oo ubax yeelatay oo jirid adag yeelatay. waxay ahayd 1996 markii aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka soo qaxay dagaalkii sokeeye oo dibadda isku helay ay aasaaseen naadi kulmiya mideeya aqoonyahanka Soomaaliyeed. naadigaasina waxa uu la baxay naadiga qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed. wuxuuna isla sanadkii 1997 xubin ka noqday urur weynaha caalamiga ah ee loo yaqaano PEN International. ururkaas oo uu xubin firfircoon ka noqday min maalinkii la aasaasay ilaa maanta. haddaba naadigaas waxaa aasaasay dad aqoonyahan Soomaaliyeed oo aan ku ekayn gobol. waxaan jeclahay inaan weliba farta ku adkeeyo Dr. Maxamed Daahir Afrax markii naadiyay inuu safar dheer ku maray dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan ee Geeska Afrika si uu soo ururiyo saxiixyadii shardiga u ahaa in naadigaasi laga aqoonsado bahda caalamiga ee PEN International ama PEN International. kolka aqoonyahan Soomaaliyeed oo gobol ku ekayn oo siyaasad midabkeed gaar ah lahayn oo aan lahayn gobol iyo maaragtay sidaan sheegay xisbi gaar ah. aqoonyahan Soomaaliyeed ba markaasi sameeyay oo gobol walba leh oo cid walba leh nidhaahdo. ujeedooyinkii naadigaasi loo sameeyay waxay ku salaysnaayeen ujeedooyinka uu leeyahay ururweynaha caalamiga ah. waxaa kaloo ilaahayeen ujeedooyin Soomaalida si gaar u khuseeya. waxaana asaas u ah kow horumarinta afka suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaa ka mid ah ujeedooyinka waaweyn ee uu naadigu lahaa ilaalinta iyo difaaca xorriyatul qowlka iyo saxaafadda iyo saxafiyiinta. waxaa kaloo ka mid ahayd ujeedooyinka maaragtay ururka loo aasaasay kobcinta iyo dhiirigelinta halabuurka da'da yar iyo faafinta aqoon isweydaarsiga iyo wada dhaqanka bulshooyinka. ujeedooyinka iyo kuwa kale oo ah kuwa caalami ah iyo kuwa gaar Soomaalida u ahba ayuu naadigu isku taagay. geedi socodkii naadiga haddii aan wax yar ka tilmaamo, naadigu wuxuu ku dhashay London sanadka aan sheegay 97kii. aqoonyahan Soomaaliyeed oo aanan adduunyo xoolaad isku urursanin hantina aan haysanin oo badheeray ayaa sameeyay. muddo ay halka ku halgamayeen. kolkii la soo gaaray 2003
ayuu naadigu wuxuu qabsaday shirweynihiisii labaad oo dunida oo dhan la iskaga yimid xilligaas oo anigu aan naadiga ku soo biiray aan xusee waxay isku yimiday in ka badan 150 aqoon-yahan iyo hal-abuur iyo fannaan oo Soomaaliya waxayna joogeen 10 beri ayay waxay ku shirayeen oo ay fadhiyeen guriga ummadda ee Djibouti shirweynahaas oo laf dhabar u ahaa naadiga in uu taabagalay si loo sugo waxaa ka mid ah waxyaalihii ka soo baxay in uu naadigu u soo guuro geeska Afrika xarun ahaan meeshii Soomaali deganeed ee markaa nabad ahayd oo Djibouti ahayd ayaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle waxa uu ku marti qaaday naadiga in uu Djibouti dego oo xarunna uu siiyo taas oo naadigu uu runtii u riyaaqay madaxweynaha Djibouti halkaas ayuu naadigu saldhigay 2003 kolkii naadigu halkaas degay fursad waxa uu helay inuu sameeyo dhaqan aan horay u lahayn Soomaalidu dhaqan haddii aan lahayna inagu yaraaday waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo aqoon wadaag oo laamaha uu naadigu ku leeyahay geeska Afrika ha noqoto Djibouti ha noqoto Jigjiga Hargeysa Muqdisho Garowe intaba waxa ka bilaabmay barnaamij loo baxshay aqoon wadaag waxaa la baray oo bilaabantay inaan isbarno aqoontu inaan cid gaara marti u ahayn aqoontu inay tahay wax la wada leeyahay aqoontu inay tahay wax dadka ka dhaxeeya mar walba in la isku yimaado kulanno aqoon isweydaarsi iyo aqoon wadaagis ah waxa ka sii dhashay taasi in magaalo ay uga sii abuurmaan reading clubs inay ka bilaabmaan oo dhalinyar ay isku tagto buugaan la soo akhriyo hal maansa la soo akhriyo oo sidaas ku sii faafa dhaqankaas waxaa bilaabmay dhaqanka wax la yiraahdo daahfur oo buugii uu qof aqoon-yahanihii qoraba in loo sameeyo xaflad weyn oo lagu maamuusayo laguna daahfuray marka daahfurka buugaagta ayaa uu naadigu hirgeliyay wuxuu hirgeliyay naadigu oo dhaqan noqotay bandhig buugaaneedyo la isku keeno inta ugu badan la heli karo buugaag dad Soomaaliya ay qoreen oo ku qoran afka hooyo ama afaf kale si loo dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka waxa taasi aan tusaale uga soo qaadaya bandhig buugaaneedka joogtada ah ee Djibouti iyo bandhig buugaaneedka Hargeysa oo sanad walba la qabto bisha July waxaa bilaabmay dhaqan kale oo ah xusaska maalmaha lagu maamuuso cilmiga iyo aqoonta waxaa ka mid ah inaan dhaqan gelinay ama naadigu dhaqan geliyay xuska maalinka afka hooyo oo ku beegan 12 February sanad walba oo markaa laamaha naadigu laan walba ay halkayga ku xusto waxaa ka mid ah xuska maalinka buugga iyo qoraaga oo ku beegan 23 April iyo sida maalinka macalinka maalinka akhriska iyo qoraalka maalmahaasi oo maalmo caalami ah oo maamulada iyo dawladaha af Soomaaliga lagaga hadlo aan ku dhiirigelino inay ka dhigaan xataa national day oo dawladdu iyadoo ay iska xil qaado wasaaradaheega tacliinta iyo kuwa dhaqanka naadigu markaa wuxuu furay dhaqankaasi cusub ee haddaan soo sheegay dadaalkiisii halkaasi ka soo socday waxa uu soo gaadhay sanadkii 2010 in uu naadigu shirweynihiisii afraad ku go'aamiyo in uu xil iska saaro abaabulka xuska maalinka xuska 40 guurada far Soomaaliya